xogta dahsoon ma doonaysaa inaad ogaato arrimaha la xiriira ammaanka dhaqaalaha iyo guud ahaan siyaasadda Soomaalida iyo caalamkaba haddii jawaabtu haa tahay la soco barnaamijka xogta dahsoon barnaamijkan oo lagu falanqeyn doono arrimaha dahsoon waxaan ku marti qaadi doonaa dad aqoon iyo khibrad u leh mawduuca markaasi laga doodayo nidaamka dhan oo rabno inaan systemka dawladda ku dhisno inuu yahay nidaam musuqmaasuq ah ma ahan doorashada kaliya oo baarlamaanka la dooranayo macna systemka dhan ayaa wuxuu ku socdaa musuqmaasuq barnaamijka waxa uu baxayaa habeen kasta oo Arbaca xilliga saacadda UK ay tahay 9 fiidnimo hamogaan barnaamijka xogta dahsoon kulanti waxaan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xogta dahsoon habeen kasta Arbaca idinka yimaada studio telefishinka Somali Cable magaalada London ee dalka Britain barnaamijka waxaan caawa ku eegi doonaa hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha gargaarka bini'aadanimada oo sheegtay in Soomaaliya looga baahan yahay adduun lacageed oo gaaraya 1.6 bilyan oo dollarka Mareykanka si wax looga qabto arrimaha abaaraha iyo gaajo Soomaaliya imika ka jirta oo cabsi xooggan laga qabo barnaamijka waxaa caawa igala qayb galaya Waliid Xujaale oo ah saxafi ku sugan magaalada London ee dalka Britain degan isla markaana ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada waxaana ku qoray jariirada The Guardian ee dalka Britain ka soo baxda sidoo kale Waliid Xoro soo shaqeeyay hay'adaha samafalka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Waliid ku soo dhaw barnaamijka waa tahay warbixin ay soo saartay hay'adda OJA ee qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha isku dawladka gargaarka bini'aadanimada ayaa waxaa lagu sheegay in Soomaaliya ay gaajoonayaan dad gaaraya ilaa 6 milyan oo qof dadkan ayaa la sheegay 3 milyan oo kamid ah inay xaaladoodu tahay kuwa aad u liidato oo u baahan gargaar degdeg ah qaramadu waxay sheegtay in 3 milyan carruur ku dhow iyaguna ay baahanayaan carruurtaas qaar kamid ah oo gaaraya 232 kun ay yihiin kuwa xaaladoodu aad u liidato oo u baahan gargaar degdeg ah carruurtan ayaa la sheegay inay yihiin kuwa nafaqa darroodu ay marayso heerkii ugu sarreeyay hay'addu waxay sheegtay laga soo bilaabo sanadkii 2017 bishii January iyo sanadkan inay hore sare u kacday dadka aad ku tabaaleysan ee Soomaaliyeed waxay sheegeen in loo baahan yahay adduun lacageed oo gaaraya 1.6 bilyan si markaasi looga hortago baahida Soomaaliya ka jirta iyo sidoo kale in la sameeyo hanaan laga gaagashaaman karo dhibaatooyinka laga baqay in sanadkan ay dhacaan barnaamijka qodobadaas aan ku eegi doonaa bal marka hore magaalada Muqdisho waxa dhawaanta ka dhacay shir ay ka qayb galeen madaxda Soomaaliya oo ka mid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya shirkan waxa ka qayb galay wadamada deeqda bixiya bangiga adduunka waxaan laga hadlayaa arrimaha dhibaatooyinka abaaraha Soomaaliya ka jira iyo qaabka loo caawin karo warbixintan waxa soo dirtay wariyaha ku sugan magaalada Muqdisho Seenab shirkan oo ahaa mid ku saabsanaa ka soo kabashada iyo jawaab ka bixinta abaaraha Soomaaliya ayaa waxa uu ka dhacay halkan waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre mas'uuliyiin ka kala socotay dalalka caalamka ee xiriirka la leh Soomaaliya iyo hay'adaha qaxootiga sidoo kale shirka waxaa ka hadlay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya isagoona diiradda lagu saarayay abaaraha soo noqnoqday ee ku soo laabtay dalka Soomaaliya markii uu shirku soo gabagaboobay waxa warbaahinta la hadlay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxa uuna ka sheekeeyay dhibaatooyinka abaaraha Soomaaliya ka taagan sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sheegay markii ay ka shaqeeyaan horumarka iyo nabadda dalka Soomaaliya in ay u laaban doonaan in ay yareeyaan abaaraha soo laabtay ee dalka Soomaaliya ka taagan intaas iyo dadka Soomaaliyeed iyo madaxda kale ee dunida halkan isugu yimid waxaan ka wada hadlaynay maanta sidii wax looga qaban lahaa abaaraha soo noqnoqday ee ka jira waddanka Soomaaliya waa ognahay in muhiim tahay in dadka Soomaaliyeed loo gargaaro si aanay noogu dhicin dhibkii nagu dhacay 2017 ee dunyada iyo ummadda Soomaaliyeed isugu yimaadaan si u diyaargaroobaan sidii cid walba waxyeello ay ku gaarto abaaraha Soomaaliya loogu gurman lahaa loogana hortegi lahaa si aanay abaaruhu noogu dhicin haddii Ilaahay yidhaahdo madaxda dunyada ka timid ee annagu waxaan isku raacnay in dadkana loogu gurmado iyadoo laga faa'iidaysanayo khibraddii aan soo marnay 2017 oo ay adduunyadu u aragtay inay ahayd markii ugu wanaagsaneed ee waddanka Soomaaliya iyo dunida inteedaba laga sameeyo gurmad ay dowladda iyo adduunyada iyo shacabka Soomaaliyeed kulligood isu yimaadaan sidii ugu fiicnaydna loogu gurmado intaas kadib waxaan isku
isku raacnay si aan mar walba aanay abaaruhu noogu soo noqon inaan maalgashanno beeraha, inaan ka shaqayno wax soo saarka, inaan ka fikirno sidii aanay abaar noogu imaan lahayn, inaan kobcinno dhaqaalaheena, inaan ka shaqayno shaqo abuur, in ummadda Soomaaliyeed iyadoo isku tashato. Adduunyadu waxaa kale soo dhoweeyeen qaabka ay u shaqayso xukuumadda iyo dowladda Soomaaliyeed, annagoo ka faa'iidaysanayna dunida noo soo jeeda. Marka waxaan leenahay iyagana waxaan u mahadcelinaynaa. inta badan waxaa Soomaaliya ku soo laabta abaaraha oo saameyn ba'an ku yeesha dadka dunyada intaba. Zeena Maxamed Aadan, Somali Cable, xarunta xalane ee magaalada Muqdisho. Zeena Maxamed Aadan ayaa taasi ahayd oo joogta magaalada Muqdisho. haddaba Mawlid ayaa caawa barnaamijka laga qaybgalay. Mawlid, qaramada midoobay waxay sheegaysaa inay u baahan tahay marka hore adduun gaaraya 1.6 bilyan oo doolarka Mareykanka sabab la xiriira in laga hortago baahida imika jirta, in laga gaasho baahi soo socota iyo in la sameeyo mashruuc markaas dadka badbaadin kara oo ah in laga baxo abaaraha soo noqda. Bal arrintan horta maxay tahay lacagtan adduunka tan la eg maxay UN ka ugu baahan yihiin? mahadsanid dhowre. lacagtan waxaa laga doonayaa inay beesha caalamka ugu deeqdo Soomaaliya maadaama sanadkii lasoo dhaafay 2017 ay abaaro baahan ee wadanka ka dhacday, waxaana la rabaa in maadaama laga hortagay inay macluul dhacdo, abaartii isku bedeshay inay maaragtay macluul noqoto, in lasii dardargeliyo hawshii sii socotay oo aysan dib ugu dhicin dadkii abaarihii. waxyaabo badanaa lasoo qabtay, laakiin waxaa laga cabsanayaa inay weli baahidii way jirtaa dadkii ay maaragtay ay dhamaadaan. marka waa lacagtii ugu badneed yabo ahaan arrimaha bini'aadanimada loogu yaboohay. marka la eego warbixinta UN OCHA sanadkii lasoo dhaafay January 2017 ilaa January sanadkan waxaa aad u kordhay heerka dadka macaluusha. sanadkaasi lacagihii lagu yaboohay maxaa lagu qabtay haddii baahidii ay hadda sii kordhayso? waa su-aal muhiima. waxa ma aragtay hadda ay leeyihiin waan ku guuleysanay waa in abaarihii jiray aysan isku bedelin heer dadka ay u dhamaadaan sidii tii 2011. marka ka hortag ayaa la sameeyey, balse baahidii roob la-aanta iyo dadkii caafimaadkoodii iyo cuno yaradii dhammaan weli way jirtaa. saas darteed ilaa hadda maaragtay 6 milyan in ka badan oo qof ay Soomaaliya ay ugu sugan yihiin dhibaatay u baahan yihiin in raashin iyo caafimaad la gaarsiiyo. lacagihii sanadkii horena waxay badanaa ku baxeen in arrimahaas maaragtay looga hortago lagu waxay, inkastoo aysan weli sidii loo rabay aysan dadkii u gaarin. maaragtay dad badan weli u baahan yihiin oo 6 milyan 3 milyan ka mida ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah. marka taas waxay ku tusaysaa weli inkastoo la sheegay in laga guuleystay in dadkii macluul ay u dhamaadaan, balse haddana aysan jirin wax maaragtay la taaban karo oo markaas soo baxay. Mawlid, warbixintaas waxay kaloo sheegaysaa in 3 milyan oo qof ay qarka u saaran yihiin macluul oo loo baahan yahay in wax loo qabto. marka maxay tahay maxay ku kala duwan yihiin kaalmada guud ee bini'aadanimo iyo middan degdega 3 milyan ay baahida u qabaan? waxay ku kala duwan yihiin. kaalmadan guud waa sanadkan ilaa 2018 ilaa iyo 2 sano soo socoto sidii dowladda Soomaaliya loogu garab istaagi lahaa markii xagga siyaasadda ay wax ka dhisaysa ay goboladii iyo maamuladii iyo sharci dejintii ay wado inaysan culays ku imaanin dhanka service delivery dadkii oo u baahnaa iskuuladoo kale caafimaadkoodii iyo cuntadoodii, in maadaama dowlad maaragtay tabar yar ay tahay in laga caabiyo. taas waa guud ahaan gargaarka ay u baahan tahay dowladda in laga garab istaago. aynan hadda wadamada deeqda bixiya kala hadashay, balse middan degdega ah waa mid loo baahan yahay inay dadka caruurta oo kale ilaa 200,000 caruur ka badan, ku dhawaad 250,000 caruur ayaa xaalad degdeg ah ku sugan yihiin inay maaragtay macluul u dhamaadaan. waxay badankoodana joogaan meelaha ay dowladda gaari karin, hay'adaha UN-kana gaari karin. waxaa laga cabsanayaa marka caruurtaas inay dhintaan, waana suuragal haddaan si degdega loo gaaro inay u dhintaan. saas darteeda lacagtan degdega loo codsanayaa. lacagtuna lacag yar ma aha, balse siday ku imaanaysay iyo processkii iyo dadkii maaragtay ayaama culays badan u ka jiraa.
sanadkii la soo dhaafay abaarta waxa loo aninayay inay yaraadeen ama la waayey roobabkii guga iyo daartiisa xigay hadda sanadkan saadaasha ay bixinayaan maxay tahay ma roobabka la-aanaa jiri doonta biyo la-aan maxay cabsidaan intan laga qabaan cabsida ugu weyn oo saadaasha hadda la qiimeeyey waxay u badan tahay inuu roobkii yaraaday ilaa 6 seasono isku xigo ayay maaragtay ilaa 6 sano ama ay roob la-aantii jirtaa haddana waxaa la saadilinayaa inay roob la-aantii weli sii jirto oo dadkan badankood waxay ku tiirsan yihiin beero iyo maaragtay xoolahoodii oo biyo la-aan badan ay ka jirto cabsida ugu weyn xaggaas ka jirtaa saas darteedna dadkii maaragtay xitaa barakacyaashii wadanka gudihiisa ee u laba jibaarmeen sanadkii hore wuxuu ahaa ilaa 1 milyan sanadka 2007 2016 wixii ka horeeyay ilaa 1 milyan bay ku dhawaayeen balse sanadka la soo dhaafay kaliya 1 milyan oo kale ku darsantay marka 2 milyan oo barakacyaal ah maaragtay wadanka gudihiisa hadda joogo warbixintu arrintan way xustay barakacyaasha mulid dhibaatada ugu weyn dadka barakacyaasha haysata maxay tahay hadda dhibaatada ugu weyn barakacyaasha haysato waxaa weeyaan markay kasoo barakacaan meelahoodii ay deganaayeen oo goboladii ay yimaadaan magaalooyinka waaweyn ma helaan wax maaragtay u diyaarsan oo hoy ay galaan iyo qorshe dowlad guud u degan oo looga hortagayo dadkan lagu maaragtay lagu soo dhaweynayo waxay si iskooda u galaan magaalooyinka korkooda cooshasha ay samaystaan kadib wixii hay-ad u imaan kartana meesha ugu imaata ay wax ku siisaa marka dhibaatada ugu badan xaggaas ay ka haysataa oo hoy la-aana bacyo ay saartaan roobka markuu ku do-o daadka qaado sidoo kale haddana dhulkii waa laga kiciyaa oo ilaa 4 sano ugu dambeysay mar walbo sanad walbo waa la barakicinayo mar dowladda ay barakiciso mar ma aragtay dad ay gooni ay barakiciyaan oo madax bannaan kuwii ugu dambeeyay waxay ahayd bishii hore hadda la soo dhaafay in muqdisho laga barakiciyay dad 4,000 ka badan marka laga hadlo guud ahaan xaaladda bini'aadanimada Soomaaliya ka jirta hadda qaramada midowga ku tilmaamaysa inay mid liidata tahay oo emergency 6 milyan oo qof dadka barakacyaasha door inta leeyahay ku leeyihiin dhibaatadaas tan leeg qaabkee kaalintee kaga jiraan dadka emergency u baahan wallahi iyaga dadka ugu badan ay ku jiraan maxaa yeelay dadka saameynta ugu badan ay ku leedahay abaarahana iyaga weeyaan maxaa yeelay gobolkoodii ka soo qaxeen magaalo kale joogaan ay cidna ka garanaynin dhaqaale iyo shaqo iyo waxba kuma haystaan caruurtoodii iyo iyagii iyo maamooyinkii iyaga dhibaatada badan gaaraysa marka barakacyaashu waxay ka yihiin maaragtay qayb weyn ah 6 milyan oo la sheegayo iyaga maaragtay dad badan kaga jiraan sidoo kale gobol kasta oo Soomaaliya ku yaalo qaaradda markaa fiirisid barakacyaal baa jooga magaalo weyn oo Soomaaliya ku taalo xero barakac ku jirin ma jirto waasanta walidu ku soo laaban doona bal aan eegno xaaladda dadka barakacyaasha ku sugan Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho qaar ka mid ah wariyaasha Soomaaliya Cable ayaa dadkaasi booqday warbixintana ka diyaariyay maxamed maxamuud dhoorre aad iyo aad baad u mahadsan tahay barnaamijka xogta daasoon iyo xaaladda barakacyaasha ku nool gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa si gaar u eegi doonaa qoysas ku nool kaamka barakacyaasha ee sayidka ee ku yaala degmada Holwadaag ka oo bartamaha bisha tan dab si lama filaan mar qora gudaha kaamka uga kacay kaga basbeeriyay ilaa iyo 10 qoys hoyigoodii oo xooshash ka sameysnaa dadkaasi ayaa soo wajahay xaalad adag oo xagga nolosha ah iyagoona aanan awoodin in ay dib u dhistaan hoyigoodii xooshadaha ka sameysnaa oo qadartaasi alla dabka kaga burburiyay gudaha kaamka ayaan ku booqanay dadkaasi iyagoona noo sheegay in ay banaanka ku hoydaan xilliyada habeenkiiya waxaana mas'uuliyiinta dawladda iyo dadka Soomaaliyeed ay ka dalbanayaan in ay xaalad degdeg ah la soo gaaraan saxnaa loo dirinta ma sana waxa ku saxinayna male wixii dhan waynu gubtay wax dhan haysan male dartan hal digsiyo hal jilmad iyo waxaas haysan oo dariska noo keenay dadkii qaraabada aniga iska seenay oo dadkii dhibaato ku dhacday markay dhayn noo imaadeen ilmeena taa markii dadkaas wax noo keenan ay noo jiraan anaga waxa noo fagtay ma jiraan daad waa u jeedaa aniga diracayga ayaa ay kala jaxana ay saaran dhibaato fara badan ayaa noo haysatay gargaar oo baxana wilaayada Soomaaliyeed wax noo qaban kara ajira adeer wala korto meeshana fadhina gurigi waa nagu gubtay teeda kale suuqa iska aadayna wal alla walihin ilaahay hanin qor ya iska soo shaqeeyayna shaqo fayle un hadda haysana ma jirto ku odsaha ina guriga noo dhisti oo banaanka musqusho ee jiifooyna meesha ina naga kiciysin ana rugay saaray saakliyeerow banaanka jiifadaan wal un haysana madle isbitaal midhiini amjiyad inta kala madle awlaadan jiriniin daawlan nin siyooy madle inta darufni haysato
walaalayaal ma fahantay isbitaal nin suubiyo meelun ku hoydaan inoo gubit lan hal wala nin wada malle kaamar la ni dirib iwal duwa naftada nin shan ee wala isin awooda waa kay wal honi taraasanbu maya isbitaal ma haysan una la isku kor rafaadan una la isku dhiig bahaan kaam kuwan ku nool heedan in galaas malle isbitaal meelun ku furun malle walaalow sidoo kale inta aan ku sugnayn gudaha kaamka waxaa noo suurta gashay in aan meesha kula hadalno gudoomiyaha kaamkaasi sayidka isagoona nooga warbixiyay xaaladda guud ee dadka ku nool gudaha kaamka iyo saameyntii uu ku yeeshtay dab ka kacay gudaha kaamka ilaa iyo 10 qoys oo hoyigoodii halkaasi ku waayay wuxuuna gudoomiyaha ummadda Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta dawladda ugu dalbaya in ay il naxariis la ku soo eegaan dadkaani xaaladda adag ku jira sida u jeedinba dadkaanu 3 kun oo qoys waay tiradoodu waxay meesha degan yihiin muddo 8 sano ah meesha hadda aan dhex taaganahay qayb kaamka kamid ah waaye dib baa ka kacay maalmaha kamid ah oo yoom ilaahiya dibkii wuxuu saameeyay 10 qoys sidaas awgeed gurmad tiro badan ayaa yimiday oo damiyay oo runtii oo mataqaanaa ugu sareeyaan gobolka Banaadir runtii dibna uma lisano waa kor taaganahay hadda waxaan dhex taaganahay guriyihii mataqaanaa dadku waa iska barakacayal sida taqaaniinba qof barakac ahoo runtii buushashkii iyo marka uun ilaahay mataqaanaa la meeli soo arursatay waxna mataqaanaa xoog yar kula timid waxna xamaal kula timid waxna soo tuugsatay muddo agaagumaysay 3 sano 4 sano agaagumaysay la meeli siday uga dhigi lahayd in boosh uga bedesho ayaa la meeli ka gubtay runtii haddii aan kaaga bilaabo degmadu hadda waxay tiri dhowr maraan lagu laabtay aniga iyo dadka mataqaanaa hadii la ku ruuyo ka gubteen 10 qoysba waa degmadan tagnay waxay nagu yiraahdeen maamulka yaa xoogaa muran iyo walaac ku jire ilaa oo mataqaanaa maamulka ka fadhiisto balnoo dulqaata runtii waa ka qayb qaadan doonaa gobolka Banaadir ma soo gaarin dawladdu hadda waxay qabatay ma jirto laakiin waxa rajayaha oo aad u rajayaha oo ku rajaweynahay Soomaalida ama sida lagu yaqaano ama dawladda ama dadka isgargaaro walaalaha muslimiinta sida lagu yaqaano ama hay'adaha sida lagu yaqaano dadkaanu inay guryahoodii dib u hana doonaan loo dhisi doono hay'adaha ka qayb qaadato dawladdu ka qayb qaadato ganacsatada ka qayb qaadato muslimiinta walaalaha muslimiinta ka qayb qaataano runtii waxaan habeen iyo maalin ku hurdnaa dadkan in guryahood loo dhisi doono laakiin haddana ayagu ma aaminsano walaac badan ay muujinayaan lowla ay dhowr mar u soo noqdeen dhaheen wax hadda maanta guryihii noo dhisaayo uma jeednee la meerigeeni ma iska kawsano maxaba aaya oon ku iri runtii waxaan ku hoos noolnahay golahii shacabka laga maamulayay dowladda Soomaaliya waxaan ku hoos noolnahay meel haddii candhuubta ay naga soo tufaan ay naga soo gaarato oo madaxtooyadii kaabigeeda ayaan joognaa waxaan joognaa wasaaraddii arrimaha gudaha waxaan joognaa madaxtooyadii halkii ay mataqaanaa ay laga maamulayay dalka Soomaaliya dhammaan waddanka Soomaaliya laga maamulayay ayaan ku sugannahay dawladduna indhahay nagu haysaa waxaa indhaha nagu haya madaxweynaha waxaa indhaha nagu haya gudoomiyaha baarlamaanka waxaa indhaha nagu haya ra'iisul wasaaraha oo cusub ordunka ah oo runtii dhaqaaqa fiican leh waxaa indhaha nagu haya gudoomiyaha gobolka Banaadir oo cusub hadda la doortay oo ordunka asuguna waxaa dhammaan nagu haya indhaha ganacsatada Soomaaliyeed walaalaha muslimiinta hay'adaha kulli magaalada Muqdisho jooga iyo kuwa dibadaha jiraba waxaan leenahay dadkan walaalihiina oo sidaa dantoodu tahay dhibaataysan oo runtii daruufta iyo danta ku muuqato hal la garab istaago guryaha ay walaaca ka qabaan oo yarka ka gubtana hal loo dhiso aniga waxaan baaqiga ugu dambeeya gaarsiiyaha dawladda Soomaaliya oo hor socdo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha dalka Soomaaliya oo hor socdan waxaan leeyahay mudane madaxweyne adiga iyo inta maamulada kula haysa dadkan walaalaha oo Soomaaliyeed oo mas'uulka ka tihiin oo mas'uul ilaahay ah mas'uul naga wadataan dadkaas il raxmad la ku fiiriya gacan bira wax ugu qabta waa dadkii runtii haddii loo gargaaro aad ay mataqaanaa ilaahay mataqaanaa idin abaal gudi doono aad buu mahadsan yahay waryahayga magaalada Muqdisho ayuu kaasi ahaa warbixintaasi noo soo diyaariyey mulid qaramada midoobe maalin kasta lacag ay dalbataa hadda u dambaysa 1.6 bilyan dadkan dhibaatan ayay qabaan guryahan gubanaya dadku dhibaato sheeganayaan musqulo ma haystaan banaanka jiifaan lacagahan xagee lagu bixiyaa horta waa su'aal da'weyn dowladda Soomaaliya markay burburtay ilaa hadda Soomaaliya lacago ayaa ma aragtay ku baxay
qaramada midoobey ku bixisay dhibaatada hadda warbixintii wariyihiina uu ka waramayay oo barakacyaasha markay imaadaan waxa ugu horeeya dadkan maaragtay la tacaalayaan waa cuntadoodii iyo hoygoodii iyo maaragtay caafimaadkii iyo iskuuladii laakiin qofka bini'aadamku mar walba maalin walba kuma noolaan karo in maaragtay wax cunto afka loo gelgeliyo wuxuu u baahan yahay noloshiisa inuu isaga samaysto dadkan soo barakacay waxay u badan yihiin dad xirfad leh oo shaqaysan jiray ganacsato iyo dukaame iyo beero iyo xoolo lahaa oo uma baahna in maanta o dhan afka wax looga shubo waxay u baahan yihiin hoy fiican iyo la qabsasho magaaladii imaadaan in la qabsadaan ee la howlgeliyo oo loo sameeyo livelihood programs oo dadkan iyagu gacantooda wax kusoo saartaan saas darteed ayuu usoo noqnoqonayaa marka dhibaatadii jirtay oo wax yaroo lacag maaragtay soo gaarto oo raashiin wax lagu siiyo uma noqonayso marka dhibaatada jirto oo hadda su-aasha ay weydiinaysaa waxaan intay ka baxaan waxay ka baxaan qofkii lacagtii markay timaado inkastoo meelo badan ay soo marto lacagaha badan ku baxayaan hay-addii iyo shaqaalaheedii iyo wixii yaraayo soo gaaran wuxuu noqonayaa wax maalinkaas uu qofka uu wax ku gadan karo oo kulligoodna wada helayn saas darteed weligeed marka sheekadii meeshay taagnaanaysaa marka ma jiro qorshe guud oo qaran oo dadkan loogu talagalay inay noloshooda dib ugu laabtaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya kulanku hadda ka qaybgalaya waxaa ka qaybgalay bangiga adduunka iyo deeqbixiyaasha maxaa soomaaliya lala qaban karaa dowladda soomaaliya maxay tahay inay la timaado qorsho laga hortegi karo dhibaatooyinka noocan oo kale sida dadka gudaha ku barakacay waddanka gudihiisa ku barakacay dadkan kale ee emergency-ga dhibaatooyinka ay haystaan qorsho noocee dowladdu lacag ma haysto ogsoonahay laakiin qorsho noocee looga baahan yahay inay beesha caalamka dowladda la hortagto waxaa loo baahan yahay inay qorshe oo long term ah qorshuhuna mid waxaa weeyaan mid soke oo hadda maaragtay degdega loogu baahan yahay mid oo qaran oo loo baahan yahay inuu ahaado mid ku sugnaado dadkaas ilaa iyo maaragtay noloshooda qaabka iskuba bedelayso ay ahaato 5 sano soo socoto qofkan maaragtay qorshe u degan oo uu ku ogaan karo inuu maaragtay wuxuu dowladda xaqiisa uga baahnaa ilaa gurigiisii beerihiisa uu ku noqon karo oo dhammaystiran marka hadda waxyaabaha oo fiican ee dowladda ay samaysay sanadkan iyo sanadka soo dhaafay waxaa ka mid ah arrimahan abaaraha ka hortagga iyo caawimaadan iyadaa qayb weyn ka ah shirkan hadda shalay ka dhacay muqdisho oo looga hadlay arrintaana waxyaabihii lagu soo bandhigaya waxaa ka mid ahaa qorshooyinkii dowladda ay ka garab waday hay-adaha UN-ka marka inkastoo awood badan ay ku lahayn maadaama ay qarashku iyaga heenin balse waxay ku leeyihiin cod iyo dowlad ahaan wax kastoo kor oga yimaado waxay dhihi karaan ma shaqeynayo waxan uu shaqeynaya marka iyaga waxaa looga baahan yahay inay maaragtay awoodda ay leeyihiin ay isticmaalaan si wanaagsanna ay u isticmaalaan iyagoona deeqbixiyaashii iyo hay-adaha caalamiga aysan maaragtay fuquuqaynin aysan albaabada ka xiranaynin waxaa loo baahan yahay haddana inay la xisaabtamaan iyaguna maaragtay qofka markaa la xisaabtamaysidna adi inaad isku kalsoon tahay waa wax hubto ah haysid molid arrimahan dadkan IDPs-ka ama gudaha ku barakacay muddadan ay ka shaqeynaysay dhawaantan warbixin ku qortay The Guardian oo arrintan kaga hadlaysay horta dhibka dadkan ay qabaan marka laga tago hay-adahan ama New York fadhiya ama Nairobi fadhiya dhibka dadkan laga ogyahay muxuu yahay horta ay haysta dhibka ugu weyn oo soo noqnoqday dadkan haysto waxaa ka mid a deegaankii ay deganaayeen meesha usoo qaxeen aysan ku haysanin hoy oo mar walba markay ay imaadaan laga barakiciyo warbixintii marka aan Guardian aan ku qoray bishii hore waxay ku saabsanayd muqdisho dad ilaa 4,000 gaaraya oo laga barakiciyay meesha xirooyinka ee deegaanka qaramada midoobay ay ka hadashay dowladdan ay ka hadashay oo dhibaato badan ka gaartay marka dad baan toos u wacay oo liigu xiray oo dhalinyaro UN-ka iskala shaqeynaya meesha joogto oo raggaas dadka barakacayaasha la shaqeynaya igu xireen waan la hadlay marka hadalka xanuunka badan ay taabtay wuxuu ahaa maamo ka mid ah Farxiyo Xuseen igu tiri magaceeda ayadii caruurteeda guriga laga barakiciyo fursadna aan la siinin oo tarakto alaabteeda looga jajabiyey waxaan maaragtay ka danqaday igu tiri waxaan mooday inaan waddan kale joogo oo qof ajnabi aan ahay oo dadkii barakicinayo inay dad uniformki dowladda qabo ay yihiin oo haddana aniga Soomaali ah waan shakiyay tiri marka ma jira waqti loo qabtay dadkaas wallahi waqti loo qabtay ma jiro siday sheegteen ma jirto wax la siiyey digniin ah ilmaha iskuul bay kala maqnaayeen qaar magaalada kala maqnaayeen waa tahay hay-addan qaramada midoobay u qaabilsan deegaameynta ee UN Habitat dhowr mar ay wax ku celcelisay oo lacag ku qaadatay inay ka fekerayso dib u dejinta dadka
soo barakacay in guryaha dejiyo xaggee ku dambeeyeen horta qorshayaashaas hay-adaha hore sheegaan niyo qorshayaashan oo dib u dejintu dhinac dhaqaale iyo isku dabarid ha ka yimaado UN-kii laakiin waxa dhulkii iska leh waa dadkii magaalada deganaa wixii dhulkii maamulaya oo bixinaya waa dowladdii waxa barakicinayo oo dadkii u imaado oo maaragtay ilmahoodii waxoodii dhan ka burburinayo waa qof Soomaali uniform dowlad qabo magac dowlad ku socdo marka dowladda looga baahan yahay inay iyada maaragtay qorshe u sameyso waana maaragtay caqabad weyn oo dowladdu maaragtay waxay awood u leedahay 2 milyan oo barakacyaal oo wadankii ku kala faafsan ugu badnaan Muqdisho ku nool inay hal mar maaragtay hageyso balse waxaa loo baahan inay u saxiixdo meel banaan ay degi karaan oo la hubo 10 sano 5 sano ilaa wadan magaalooyinka looga celinayo because dadkan meesha raba inay joogaan ma hadda marka laga hadlo xaaladahan bani'aadanimada ee degdega dowladda Soomaaliya door intee laga ayaa looga baahan yahay ka qaadato muxuu yahay doorkeedu horta waxaa weeyaan dadkan waa dadkeedii wadanku waa wadankeedii dowladda marka waxaa loo baahan inay hagto ayna hogaamiso qorshe kasta oo maaragtay loogu talagalay inay maaragtay lagu samata bixiyo wadanka marka waxa ugu weyn oo ay qaban kartana dowladda waxaa weeyaan inay la imaato siyaasad qaran oo baarlamaanku uu meel mariyo oo qorshuhu uu degan yahay markay la xisaabtamayaan deeq-bixiyaasha adduunka iyo UN-kana inay kula xisaabtamaan sharci u degan iyo qorshe qaran oo u degan balse hadday qaabkii dowladdii ay u dhaqanto qaabkii NGO-ga dhibaato badanaa ka imaanayso maxaa yeelay qofka markaa rabtid inaad la xisaabtantid waa awoodeeda inaad leedahay waxay ku soo celceliyaan dowladaha deeqda bixiyo iyo World Bank oo ka qayb galay shirkii hadda aad sheegteen kulli waxay ku soo celceliyaan waxaa weeyaan dowladdu institutionkii dowladda ayaa daciifa marka hay-adaha dowladda inay usoo laaban doonaa dhibaatada iyo waxyaaba laga tabanayo weli qaramada midoobay qudheeda waxaa jira waxaan wax cusumaan abaartu waxay dhacday 2011 baa dhacday wixii hore dhaska dhaf hadda ka soo bilaabo xilliyada u dambeeyay 7 sano ugu dambeysay ma jira hanaan iyo qaab looga hortagi karo arrintan ama loo sameyn karo wax jira oo waxaan ahayn emergency markasta abaar lagu soo boodo emergency lagu soo boodo ma jira hanaan ay qaramada midoobay sameyn karto oo dadkan u sameyn karto lacag badan magacooda kusoo qaadataa oo ah dadku inay helaan wax degan siyaasad degan oo dadkani abaaraha iyo laga hortagi karo waa wax muhiim ah waxay u bateen wixii UN-ka iyagana ay gacanta ku hayeen emergency oo gargaar degdeg ah oo dadka maaragtay mar walba qaylo dhaan loo sameeyo hadda waxyaabaha hadda sanadihii dambe soo badanayay wuxuu ahaa maadaama abaarihii ay soo noqnoqdeen in la dhiso dadka adkeysashahooda iyo dhaqaalahooda iyaga maaragtay markii abaar dhacdo abaaraha weligood way dhici jireen laakiin dowladda wadamada nagu hareereysan Kenya iyo Horn of Africa dhan way ka dhacdaa abaaro laakiin ma aha mid ma aragtay dad ku dhamaadaan wadamadan hormaray oo Yurubta iyo Mareykanka daadad badan oo musiibo qaran baa ka dhacdo oo dad badan ay ku dhamaadaan marka wax u gaara ma aha Soomaaliya balse waxa la isdheer yahay waxa waa qaabkii looga hortagi lahaa dadku ma u diyaarsan yihiin ma u tababaran yihiin beerahoodii iyo dhulkoodii iyo ganacsigoodii ma u diyaarsan yahay in maskaxiyan iyo ma aragtay iyo maal iyo maskaxbo ma ugu diyaarsan yihiin qaabkii hadhow waxaan ay hortagi lahaayeen intay qayladaan shisheeyay sugi lahaayeen marka waxaa loo baahan yahay marka in UN-kan lacagtan uu ku bixinayo dowladda iyo deeq-bixiyaasha dhanbo in dadkan afka aan wax loogu shubin kaliya la siiyo waxay iyaga tamartooda kusoo dhalin lahaayeen ee maaragtay kaga gudbi lahaayeen oo markay wax dhacaan iyaga gacantooda kaga bixisana ceelashii iyo vocational trainingkii oo xirfadoodii la tababarayo wax la siinayo iyo in loo sameeyo lacag iyagu ay ku shaqaystaan oo kadibna ay soo celiyaan oo dadka markaas ay ugu diyaarsamaan wax walba ku imaado weli sida hadda uu sheegay ra'iisul wasaaraha waxay ka shaqeynayaan in la sameeyo wax joogta oo dadkan abaara laga hortagi karo qorshahaasi muxuu noqon karaa qorshahaasi dowladda lacag badan ma haysato awooddaas aad ku faafa ma lahan maxay samayn kartaa dowladdu horta mar walba wax la qabanayo qorshe inuu jiro waa laga maarmaan qorshahana laba u kala baxaa mid waxaa weeyaan qaabkii oo mashruuciyadii dibadda ka yimid loo hagi lahaa dadkii maaragtay loogu shaqeyn lahaa sanadkii 2 sano qaabkii maaragtay maalin walba day to day activitieski loo hirgelin lahaa midna waa midka ugu muhiimsan waa sharcigii dowladda oo qaran oo u degan oo baarlamaanku mariyay oo wax walba oo hadhow maaragtay qorshayahan yaryar ee xilliyada dhowdhow ah lagu hagi lahaa
marka dowladda waxay diyaarinayso ee hadda ka shaqeynaysa ee ku guuleysatay waxaa ka mid ah inay ka qayb qaadato qorshayahan oo maaragtay dadkan abaaraha looga hortagayo balse waxay u badnaa shirkii high level meetingkii hadda la isku yimid oo heerka maaragtay sare ahaa oo deeqbixiyaasha waxayna iskugu yimaadeen dhinaca waxaa moodaa inay xoogaa ahaa mid dabaaldeg u ku yara jiro press releasyadii iyo warbixinadii ay soo saareen oo aan akhriyay waxaa ka mid ahaa inay xoogaa ku yara faanayeen inay Soomaaliya abaar ku soo socotay ay ka hortageen haddana numberska markaa fiirisay dadka tirada 6 milyan oo qof ah wali baahan 3 milyan ka mid ah wali waxay qarka u saaran yihiin abaar dib ugu noqdaan marka hadaladoodu isburinaya haddana waxaa ka maqan meesha ra'iisul wasaarihii meesha uu joogay iyo dowladii iyo UN-kiiba ay ilaaween inay micnaha ay sheegaan kaalinta dadkii Soomaalida ay ka qayb qaateen abaarihii sanadkan hadda dhacay la soo dhaafay abaaro waxay ahaayeen baahsan oo dad badan ay ku dhamaan gaareen balse waxaa ka hortagay UN iyo kaliya ma ahayn shacabkii Soomaalida dhalinyaradii aaway abaaraha ma artay ka hortagay qurba joogtii lacagta ururisay kuwii Muqdisho iskuuladii jaamacadaha intay ma artay iska ururiyeen raashinka lagu sheegay ma jirto markii la fiiriyay marka percentage ahaan qayb libaax leh waxaa ka qaatay dadkii localiski dhalinyaradii wax baratay aad baa maasan tahay arrintan NGO-yada aad soo dal qaaday waxaa dad badan waxay aaminsan yihiin in NGO-yo oo local ah oo gudaha hay'adahan yaryar oo nin iyo computerkiisa ah xitaa xafiis email lagu soo aan lahayn karamada midoobe lacag 100,000 la siiyo lagu siiyo mashaariic lacagahaasna sidee rabaan ay yeelaan arrintan ma jirtaa guud ahaan way jirtaa in ay hay-ado maxalliya oo yaryar oo wadankii joogay iyo kuwo kaloo Nairobi fadhiyo ay lacag badan lagu siiyo Soomaaliya inay wax ka qabtaan u shaqeeyaan isdoomarin badan ay jirto riboodyo badan laga soo saaray UN-ka ay lacag ku bixiyeen la xisaabtan badan iyo isbedelada iyo shuruuciye soo saareen oo lagu adkeenayo balse wali way jirtaa laakiin nasiib darro dadkaas waa Soomaali waa dadkoodii iyo walaalahooda baahi u dhimanayo lacag inta ku soo qaataan warbixin been u qorayo dhahay dadkii waan gaarnay marka dhinacaas marka laga fiiriyo damiirkaaga ma ku siinayo in walaalka lacag lagu soo dhiibo ka cuntid marka waxaan dhihi lahaa marka iyaga inay dib isugu noqdaan oo 25 sano la soo dhaafay waxaan way jireen marka booskaas la rabaa marka dawladda inay gasho iyadu ma aragtay waxaan la siinayo hay'adahan yaryar iyadu ma aragtay qaadato laakiin waxay isku qaadan karin shuruucdii lacagaha lagu hagaayay iyo ummadda sana dawladda marka waxaa la leeyahay wali leedan ma aamini karo marka saas darteed wax walba oo dhibaato jirto dawladda ku soo laabanaysa ugu dambeynta marka laga tago dawladda iyo hay'adahan qaramada midoobay dadkan caadiga Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool iyo kuwa lacagta haysta ganacsatada wadankii jooga kaalin inta laga qaadan karaan inay masuuliyiinkan baajiyaan ama gacan ka geystaan caawintooda qodobkii hadda aan sheegayay oo ayaad ma aragtay ka dhawaajisay waana arrin muhiim ah qurba joogta Soomaaliyeed iyo ganacsatada iyo gaar ahaan dhalinyarada oo jaamacadaha dhigtay iyo kuwa wadanka joogo qayb libaax leh ay ka qaateen waxaan hadda ay nimankan madaxda iskugu yimid Muqdisho ay ku faanayaan qayb libaax leh waxa ka qaatay shacabkii Soomaaliyeed oo ilmihii raashinka ugu geenayay dadka ka hortagay iyagay ahaayeen ilaa haddana ma aragtay waxaa loo baahan yahay inay sii laba jibaaraan taas micnaheedu ma aha in qaramada midoobay iyagana lacagii ku bixinayeen in ma aragtay aanan looga mahad celinin runtii sanadkaas hadda abaaraha dhaceen in ka badan 1 bilyan waaye milyan ma aha ay ku bixiyeen Soomaaliya marka dadkaasna waa in ma aragtay iyagana loo mahad celiyaa wax badan oo iyaga hadday ahaan lahayn waxaa jirta dhibaato badan ay gaari lahayd oo ay habeen maalin ma aragtay ay u qeylinayeen in Soomaaliya ma aragtay wax loo helo marka taasna waa wax weyn laakiin qurba joogta waxay sameyn karaan way abaabuli karaan waxyaabahan gooni-goonida ee qolo walba ma aragtay gobolka ka timid ay u qabsanaysa inta iska dhaafaan hal meel oo iskugu imaan karaan dhalinyarada wax baratay waxay sameyn karaan in ma aragtay crowdfunding isku ma aragtay ururin karaan lacag u diri karaan jaamacadaha hadda Ingiriiska kale marka ka soo qaato tusaale ahaan lacag badan ay ururiyaan ilaa waxa la ii sheegay dhowr boqol oo kun oo pound oo inay ururiyeen ay hay'ado kale u direen wadamo kale ah Soomaaliya aan ahayn waa arday Soomaali ah waanaan arkay waan weydiiyay marka Soomaaliya connection badan lama laha hay'adahan kale ajnabiga ay ma aragtay inkastoo wax fiican ay tahay in dad kale oo masaakiin caawiyaan balse waxaa loo baahan iyagana ardayda Soomaaliyeed ee qurbaha joogto inay fiiriyaan wadankoodii abaaro arday badan abaaraha Soomaaliya si toos ah oo qayb qaatay Ingiriiska way jiraan balse kuwa badan waxaa jira aan la ogeyn oo ani aan arkay
aan xataa u bandhigay aan jaamacadda ugu tagay aan qorshihii Soomaaliya iyo abaari iyo wixii aan tusaan dhahay way fiican tahay hay'adaha ajnabi inay caawisaan oo dad kale masaakiimiin ah laakiin dad Kenya dhamaanayo marka taasna way fiicnaan lahayd inay dib u fiiriyaan aad baa mahadsantahay Mawlid daawadayaal barnaamijka oo aan caawa ku eegeynay qaramada midoobay oo sheegtay inay u baahan tahay adduun gaaraya 1.6 bilyan isla markaana si wax loo qabtay ilaa iyo 6 milyan oo qof oo Soomaaliyeed oo gargaar degdeg u baahan inta ayaan kusoo gabagabeynay barnaamijka waxaa caawa igala qayb galay Mawlid Xujaale oo ah suxufi arrimaha bini'aadamada ku takhasusay isla markaana ka shaqeeya jaridda The Guardian arrimaha bini'aadamada Soomaaliya wax badan ka soo qabtay ka shaqeeya aad baa mahadsantahay Mawlid barnaamijka waxaa igala qayb galay soo saaristiisa gacan ka geystay Maxamed Yare Maxamed Daacad iyo sidoo kale Cabdisamad dhamaantood isku duwan waxaan leenahay sida iyo nabad galiyo xogta dahsoon ma doonaysaa inaad ogaato arrimaha la xiriira ammaanka dhaqaalaha